mudanayaal subax wanaagsan aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa soo xaadirkiina saaka mudanayaal intaan hawsha gudagelin kelmad yar oo codsiya baan ka hormarinayaa hadda xogay wuxuu inoo sheegay in fadhiga kooramku 4 yahay haddii hal mudana baxo uu jabaya shaqana waynu qabanaynaa marka in lagu dadaalo intaaynu shaqada ku jirno inaan kooramka la jabin إن شاء الله من الله كريم مدن يال إن شاء الله وحين قضى قلنا قضى كي كويت من هذا أجنتينا أريما حدودها بدلان يقبل هذا السؤال السنة قضى بكاس وان شاء الله هلكن كاقري من التسكي كالفرد جافر يا فرتنات شركي ولا تشيك قضى بدي كالصباحي يقوان كي قولا كدم بيردم waan soo jeedinay in qodobkaas hawshiisa inta badan golow uu wax ka soo saaray inuu u baahan yahay tabagal shalay markaan anagu mudanayaashan soo dhex dhignay inaad taan la qaataan waa jeclayn laakiin tala soo jeedinteeni shalay waxa ay ku soo ururtay in qodobkaas la xisaabtanka xukuumadda la geliyo oo halka uu galo oo waxyaabaha dhiman marka la xukuumadda la xisaabtamayo lagu la xisaabtamo qodobkaas aan rabnaa shalay oo isla qaadan lahayn laakiin waa kii kooramku jabay in horta saaka isla qaadano dabeedna aan u gudubno hawl maalmeedkeena inta kale inoo harsan mudanayaal qodobka ajanta ee arrimaha xuduudaha Puntland iyo gobollada Sool iyo Sanaag yaa ogol inaynu gelino qodobka la xisaabtanka xukuumadda mudanayaal kooramka waxaa fadhiya 35 mudana waa ogol ciddii dayna ma jirto hal mudana waa ka aamusay sidaas ayaan qodobkaasi uu ku galay la xisaabtanka xukuumadda insha Allah billahi kariim mudanayaal qodobka ugu xiga ee aynu ku nimi waa la xisaabtanka xukuumadda madaxweynaha waa maqan yahay madaxweynihii iyo wasiiradii inta shaqada badan laga rabayna gaalkacyo joogaan waa kuwii mudada shirka Dhuusamareeb iyo shirkii gaalkacyaba ku maqnaa qodobkaas hadda ma muuqdo inaynu maanta ayaan ka shaqayn karno mudanayaal baa iyaguna shalay soo jeediyey inaan soo hormarino qodobkii bian Airport iyo DP World oo arrintii dekada Boosaaso aad looga dayranaya inuu ka hadalno ka mudanayaal waad ku soo wareejinayaa mudanayaasha codsigooda iyo annagaba oo ay noola muuqato inaan xisaabtankii aynaan maanta gudageli karin inaan qodobka soo hormarsano yaa ogol inaan isla qaadanay inaan qodobka DP wala soo hormarsano mudanayaal kooramka fadhiya waa 35 mudana waa ogol diidma ma jirto aamusna waa hal mudane sidaas ayaynu ku gudagelaynaa qodobkeena ajantaha ee DP World dibeegista heshiiska DP World wasiirkii dekadaha inuu gala hor yimaado si aan waqti inooga lumin wasiirku inuu hor yimaado oo wixii su'aalaha iyo nagaga xidhan hawsha tan iyo wixii xoga ee ku saabsan dekada iyo heshiiskaas inuu la wadaago uu hor yimaado golaha marka waxaan soo jeedinaynaa mudanayaal inaan isla qaadanay inaan wasiirkii talabno aan u yeedhno kadibna waraaqdii loo qoro golahana hor yimaado berrito insha Allah billahi kariim yaa ogol mudanayaal in markaa wasiirka aan u yeedhno kooramka waxaa fadhiya 36 ogol waa 36 ciddii iyo cid ka aamusteen markaa ma jirto saasuu dhammaan ku yahay waa mahadsantihiin berrito subax 9 subaxnimo ayaan ballaminaynaa wasiirka insha Allah billahi kariim yimaado sidaa daraadeed mudanayaal waxay noo ballanaa berrito subax